jirta 385 kilomitir badweynta halkaas siyaasad ma taalo ciladan waa cilad farsamo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in waxyaabaha la isla dhaxmarayo oo ah la siyaasadeyna inaysan waxba ka jirin arinkan waa cilad farsamo horeen noogu dhacday wayna dhici doontaa adduunyadana way ka dhacdaa ciladan insha Allah hadda raadkeeda injineeradii ayaa gacanta ku hayo shirkadda Dalcom ayaa gacanta ku hayso shalay saan la socono shirkadda Hormuud waxay soo saartay war saxaafadeed ku sheegayso in ciladaas halkaas ay ka timid insha Allah maanta baaritaanka markuu soo dhamaadana shirkadda lafteeda waxay soo saari doontaa war saxaafadeed ay soo saari doontaa annagana hadda waxaan u sheegaynaa in arinkaas uu yahay cilad farsamo horeyna u dhacday haddana taagan dhicna doon dadkan aan la qaybsan doono amaanka yimaado boosaasa laga soo dejiyo hadda dhulka la soo marsiyo ilaa galkacay soo maraa waxaa la qabtay labadii markii xergii hore dhibaato nagu dhacday kadib ayaa la qabtay mid kale hadda badda ayaa la dhigayaa oo maartay hawshiisa way socotaa dadaalada way socdaan waxaa kaloo jira satellite backup oo haddaba aynu bilownay in meelaha critical infrastructure ama muhiimka in saacadaha soo socda muddada dhow soo socda in maartay loo heli doono internet oo shaqada lagu sii wadi karo intii hawsha maartay ka imaanayso marka dadaaladaas oo dhan waa la sameeyay waa laga gaashaantay laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano dalkeena burbur ayuu ka soo kabtay technology ahaan meel sare marayna marka adduunyada loo fiiriyo laakiin haddana maartay 100% ma noqon karno laakiin waxaan qabaa shirkadeena way dadaaleen dawladdeena way dadaashay waxaan mar kale ku celinaa dadka arrimahan oo kale siyaasadana dawlad sideedaba wax ma cuslaysay waxbay fududaysaa bangiyada ay dhibaato ka soo gaaraysaa xawaaladii dhibaato ka soo gaartay immigrationka passport bixinta ay dhibaato xafiisyada shaqadooda ardadii wax baranaysa cid kasta way saameynaysaa duulimaadka ayay saameynaysaa telefoonada xataa dibadda iyo gudaha u dirno internet wicitaanka saameynaysaa noloshii oo dhan ay saameynaysaa marka dawladana waxay u taagan tahay in ummadda nolosha u fududayso laakiin ummadda inay ku cuslayso maaha marka gacanta ayaa lagu hayaa waxaan rajaynaynaa maanta gelinta